Tokat! Gıday! Tokat! Gıday! Tokat! Gıday! Tokat! Bum! Tokat! አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት Stop! wadammadani waxay isugu jiraan ciidanka xoogga gaarka ah ee deegaanka Soomaalida iyo dufcadii 12aad ee ciidanka booliska federaalka. Kuliyadani waxay noqonaysaa ciidamadii ugu tiraha badnaa intii ay jirtay ee ay maanta qaabisho isla markaasna ka qalinjabiyeen.
ما أنت قلنا جبينتن كذا عيسى تكتيجا حرونت بوليس كتابرك تكتيجا لقصوا جبي وحي كجد وأنت يكون هره إن تايتي يجوا الرئيسي سيس خرافة تابر يسكن نوع يوقاتين فدرال بوليس يا بوليس كديجانكو تاس أورنتي كرو قارسة تيادا عيدن كبوليس كديجانكا ما دام عشرة أيقادنا يان يتبرك أيقادنا يان يوقتك أيقاتين بو كديرا كوي هراء أيقادن شرين واتردي يقبض نيد توبرتا ديجانكا عيدن كيسة وانا كوي وقتك ديرا وانا مركي جو الرئيسي تدك توبرتي ديجانكا قارهان بوليسكا توبرك عدة قادتي أي كوتشران dhalinyaro ka soo baxday jaamacado oo aan rajaynayno inay noqon doonaan hogaaminta mustaqbalka ee booliska iyo ciidamadaba iyagoo caawin doona kuwa maanta hogaaminaya tababarayaasha waxaan dhammaantood kula dardaarmayaa inay waxiliya waajibaadkooda si hufan uga soo baxaan sidaad la socotaan dalka Itoobiya dagaaladii ka socday 4 sano u dambeysay waxay u muuqdaan kuwa gabagaboobay iyadoo heshiis nabadeed la qaatay taas oo wax weyn ka tari doonta horumarka iyo deganaanshaha dalka kaalinta ugu weyn horumarkuna waa nabadana waxay gacanta ugu jirtaa hay'adaha amniga marka hay'adaha amnigu kuwa federaalka iyo kuwa deegaankuba inay si wada jir u shaqeeyaan iyadoo deegaan ahaan hadda ahmiyadda weyn ay saaran tahay la dagaalanka kooxda argagixisada ee al-shabaab la dagaalanka isku dhacyada qabaa'ilka ee gudaha ka jira iyo meel marinta go'aamadii horay loo qaatay si loo xalliyo khilaafaadkaas la dagaalanka kontrabaanka sharci darrada ee dhaqaalaha waddanka dhibaatada weyn ku haya in iyadoo kuwa xoogga la saarayo federal booliska iyo booliska deegaankuba labaduba ay u diyaar garoobaan in kaalintooda haddaba ay ka ciyaarayeen si laba jibaaraan amniga guud ee deegaankana ay sugaan deegaanka Soomaalida dadka ku nool maanta way ka wanaagsan yihiin 30 sano ka hor say u noolaayeen way ka aqoon badan yihiin way ka dhaqaale fiican yihiin way ka dhisan yihiin nidaam ahaan waxaa taas lagu gaadhay samir iyo dulqaad iyadoo weliba 30 sanadood intiisa badan colaad iyo dhibaato iyo cadaadis dad ku jireen waxaan aaminsanahay 10 sano oo dambe haddii amniga deegaanku uu sii waaro in sidaa ay si ka wanaagsan uga muuqan doono dhaqaalaha iyo aqoonta iyo wajiga shacabka iyo nolosha deegaankaba inay saas ka fiican noqon doonto ugu dambayn mar kale waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa mas'uuliyiintii macadka ugu horeeyo maareeyaha macadka Maxamed Xasan ku-xigeenadiisa iyo hoggaanka nabadgelyada ee deegaanka taliyaasha ciidanka booliska iyo booliska gaarka labadaba oo runtii si weyn isugu dabarjabiyay in tababarkan uu noqdo mid lagu guulaysto waxa kale oo u mahadnaqayaa tababarayaashii iyo mas'uuliyiinta heer federaal ee iyaguna sida wanaagsan uga qayb qaatay tababarkii socday waxaan dhammaantiin u rajaynayaa maalin farxad leh hambalyo noqda kuwii shacabkooda iyo dadkooda iyo diintooda u adeega aad iyo aad u mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ዛሬ በአገራችን በተለይም በኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ የስልጠና ታሪክ በዚህ ወር ከፍተኛ ቁጥር ያለውን ወጣት የፖሊስ መኮንኖች ያስመረቅንበትና በተለይም ደግሞ የሶማሌ ክልል ፖሊስ maanta abid markii ugu horeysay taariikhda dalkani Itoobiya waxa qalin jabiyay tiradii ugu badnayd ee federal booliska ah iyagoo isku mar la qalin jabiyay markii ugu horeysay ciidanka xoogga gaarka ah ee dawladda deegaanka Soomaalida waxaana leeyahay dhammaanteen baga ayaa nabad ku gaadhnay qalin jabintani hambaliyo sidoo kale si uu u meel maro qorshaha dib u habeynta boolisku isla markaasina booliska federaalka ay uga mid noqon lahaayeen 5 boolis ee ugu wanaagsan qaaradani Afrika ayaa waxa maanta qalin jabiyay tiradii ugu badnayd si ka duwan waqtiyadii hore kuwaasi oo laga soo kala xulay dhammaan qoomiyadaha kala duwan ee dalkan Itoobiya iyadoo sidoo kalena la sugay ka qaybgalka haweenka in maanta aynu heerkani soo gaadhno waxa door weyn ku lahaa oo ka shaqeeyay hogaaminta deegaanada dalka laga soo bilaabo dhanka diyaarinta iyo soo xulidda xubnahan dhalinyarada ah ee booliska ee maanta qalin jabiyay aad ayaan idinkaga mahadcelinayaa dadaalkaasi aad sameyseen aniga oo ku hadlaya magaca guud ahaan booliska
wakhtigani waa mid dhammaan afarta jihe ee dalkeena laga dareemayo neecow nabadeed oo ay shacabkuna bilaabeen inay u jeedsadaan dhanka horumarka maanta halkan aan ku suganahay ee bariga dalkan Itoobiya ee deegaanka Soomaalida gaar ahaan magaalada Jigjiga oo ah astaanta nabadda iyo xasiloonida inkastoo kooxaha argagixisadu ay isku day ku sameeyeen haddana waxa isku daygoodaasi si wada jir ah u fashiliyay xoogga ciidanka gaarka ah ee dawladda deegaanka Soomaalida iyo ciidanka qaranka si loo gaadho nabadgelyada maanta la haystana waxa door aan la soo koobi karin ka geystay ciidanka xoogga gaarka ah ee dawladda deegaanka Soomaalida